بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا الله سبحانه برنامج هذا حكومة جمهورية سوماليلاند استراتيجية ديسا يقرشه دجود waxay inta badan ku salaysan yihiin barnaamijka horumarinta dalka iyo barnaamijka horumarinta nidaamka maamulka dawladeed ee guud ahaan shaqaalaha dalka. wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka mid tahay wasaaradaha dalka waana wasaaradda u xil saaran dhammaan degmooyinka iyo gobollada dalka. sida la ajligeed degmooyinka dalka oo 101 ah oo ka tirsan 14 gobol ee dalku uu leeyahay waxa ka shaqeeya shaqaalaha aad iyo aad u fara badan waxaana ay u baahan yihiin shaqaalahaasi sida ku cad barnaamijka xisbiga jamhuuriyadda xisbiga kulmiye iyo barnaamijka maamulka حكومة سوماليلاند واجبات كوزارة والبلوغ قرشية ووزارة والباقي كلها دحي حركة إن كرلو قاعدة إن لوعي قليو إن لتبابرة شغالها الدولة ده هير دقمو إلى يهير قبل يهير قرن انتبه إيضا شغالها اللي قلت تبابرة أيوه مارينتا ميل مارينتا maamulka nidaamka dawladeed ee wasaarad waliba ay shaqada ku leedahay. si arrinta loo meel mariyo waxa la hindisay muddo hore in xanku raadaya la sameeyo maxadka tababarka shaqaalaha dawladaha hoose local government institute 2016 ayaa xanku raadaya la meel mariyay hase ahaatee inta xukuumadda imika ay dhisneed 2018 bishii September ayaa wasiirka arrimaha gudaha aniga wasiirka arrimaha gudaha ku ansixiyay wareegto heer wasiir oo qaabeynaysa nidaamka loo dhisayo inta loo maamulayo iyo halka maxaan ku raadayay sida uu hawlgalayo maxadka dawladaha hoose muddo maxadku wuxuu la soo shaqeynayay oo martigelin loogu sameeyay maxadka maareynta shaqaalaha hawlaha shaqaalaha JSI-ga wanaadi aad ugu mahadnaqayno intii dambana maxadku si ku meel gaara ayuu isagu maxaan ku dhaaday hawshiisa u sii watay. maxadka waxa loo diyaariyay si uu noqdo meel rasmi ah oo uu ku shaqeeyo waxa maxadka loo diyaariyay in la dhiso goob loogu qabto ama lagu maamulo hawlaha tababarka hawlaha maareynta maxaan ku dhahday maamulka hawlaha maxadka maamulkiisa in maxaan ku dhahday aanu meel u dhisno. maxadkaasi wuu dhamaaday bisha afarteeda la furayaa. maxadkaas waxaa laga dhisay dakhliga dawladda Soomaaliland miisaaniyadeeda laga dhisay taasoo ah miisaaniyadda wasaaradda arrimaha gudaha ee ah kabka dawladaha hoose ay ku leeyihiin miisaaniyadda qaranka ayaanu ka sameynay iyadoo oo dhammaan meeyarada dalku qorshahaas ay maxaan ku raadayay ka qayb qaateen. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan meeyarada 101 degmo ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka kooban tahay sida xilkasnimada ah sida qarannimada leh sida dawladnimada leh iyaga oo qarowsan shaqaalaha dawladaha hoose haddii aan maamulkooda iyo maareyntooda aan
la habaynin la tababarin la barin nidaamka maamulka ee kala duwan haddii ay tahay cashuur ururinta haddii ay tahay maamul daadejinta haddii ay tahay miisaaniyad samaynta haddii ay tahay maareynta maamulka oo ku daadegaysa ilaa iyo heerka gobol heer degmo ilaa iyo heer tuulo taasaa markaa keentay in maxadka laga sameeyo miisaaniyadda qaranka jamhuuriyadda Somaliland qaybta wasaaradda gaashaandhigga iyo dowladaheeda hoose waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hay'adda UNDP oo iyadu naga caawisay qalabaynta ayaan iyagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka dhiijiyada agaasima waaxidyada iyo guud ahaan shaqaalaha waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hawsha dhismaheeda fuliyey inta ka horeysayna برنامجyada tababarada dawladaha hoose fulinayay maareeyaha maxadka dawladaha hoose iyo shaqaalaha la shaqeynaya ayaan aad iyagana ugu mahadnaqaya waxaan rajeynayaa barnaamijka tababarka iyo maareynta shaqaalaha inuu dawladaha hoose wasaaradda dakhliga gacan weyn ka siinayo waxaan jecelahay aan ugu mahadnaqaynaa hawsha cidii soo qabatay iyo cidii gacan naga siisay wasaaradda aad iyo aad baan mahadsannahay insha Allah waxaan rajeynaynaa in Allah uu ka noqdo maxad hawlaha iyo hirgelintooda iyo taabagelintooda qayb naga siiya